wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boss Mire Maxamed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay garsoorayaal tababar dibadeed ugu soo dhamaaday dalka Itoobiya. Kulankan wasiirku uu la qaatay garsoorayaasha waxa goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirashiid Cadiid Yaasiin, agaasimaha maamulka iyo lacagta Maxamed Nuux Jibriil, afhayeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cali iyo garsoorkii tababarku u soo dhamaaday. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay afhayeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Axmed Cali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan joognaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gaar ahaan xafiiska wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Mr. Yusuf Mire Boss oo ay la joogaan garsoorayaal tababar heer caalami ah oo dhanka soo qaatay muddooyinka gudaha Itoobiya ugu maqnaa dalka dibadiisa. Kaloo madasheena la fadhiya agaasimiye waaxda ciyaaraha iyo agaasimiye waaxda maamulka lacagta wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha. Marka barnaamijkeenu wuxuu daaray oo warbixin iyo dardargelin shaqadii aad soo qabateen. Marka si wasiirka iyo guud ahaan dadka kale bulshada kale uga warbixiyo waxaan kusoo dhaweynayaa agaasimaha wasaaradda waaxda dhalinyarada ciyaaraha. Geestiisana waxaa hadalka qaatay agaasimaha waaxda ciyaaraha Cabdirashiid Cadiid Yaasiin oo ka warbixiyay tababarka ay garsoorku soo qaateen iyo dadaalada ay ka wasaarad ahaan ugu jiraan qaabaynta iyo tayeynta garsoorka kala duwan ee dalka. Waxaanu yiri wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Yusuf Mire Maxamed Boss, agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta, afhayeenka wasaaradda, garsoorayaasha kubadda cagta ee dhawaan tababarka ka soo noqday, saxaafadda. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kulankan wuxuu daaran yahay waxa isugu kan yeedhay wasiirka isugu kan yeedhay si la idin dhiirigeliyo kelmadiisiina uu idin yiraahdo. kulanku intaas uu daaran yahay. mudane wasiir waa garsoorkii 10ka ahaa ee muddada 17 cisho ugu maqnaa tababarka. waa garsoor ka duwan garsoorkii hore. waa garsoorkii aynu ka soo qaaday sanadkan gudihiisa tartankii xaafadaha degmooyinka lagu qabtay ee heerarka 4 iyo 5 u qabanayay. isla mar ahaantaana markiiba aqoontooda iyo kartidoodu ay gaarsiisay inay qabtaan heerka 2 iyo heerka 3 horyaalada socda. runtii imika tababarkan ay soo qaateenna wuxuu gaarsiinayaa heerka ugu sareeya inay ka qaban karaan oo awoodeeda leeyihiin. waa garsoor aan ku rajo weynahay in ay waqti badan inala qaadan doonaan. waa dad da'yar oo dhalinyaro ah ay ka go'an tahay jacaylka kubadda cagta ay u qabaan. marka waxaan rajeynayaa insha Allah inay noqon doonaan baalasha xiriirka kubadda cagta uu ku duulo. waxaan isagana u mahadcelinayaa xiriirka kubadda cagta oo hawsha dadaal badan ka geystay inamadaana intii ay gacanta ku hayeen si wanaagsan u dhiirigelinayay. xulidda 10kan garsooran iyagu lahaa oo kuwii koobaad ee aynu dirro. waxaan jecelahay inay imika heleen shahaadada 2 ee CAF. waxaa u hadhay tii 3aad, tii 4aad iyo tii 5aad. taana innaga ay nooga baahan yihiin meelihii kale aynu u diri lahayn ee aqoontooda gaarsiisan. waxaa kaloo dee garsoorka la idinka doonayaa inaad aqoontii aad soo barateen aad gaarsiisaan garsoorka intiisa kale. waad ogtihiin oo rag badan oo 20 ah ayaa tababarka ku wada qaadan jirteen. dhowr iyo 20 bad ahaydeen waqtigaan idin bilaabay. intii kalena waxay doonaysaa inaynu gacanta u sii qabano tababarka halkii ka sii wadno. iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay garsoorkii tababarku u soo dhamaaday oo ugu mahad celiyay wasiirka iyo guud ahaanba wasaaradda dadaalka ay geliyeen sidii ay tababarkaasi u heli lahaayeen. waxaanu yiri ilaahay salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam. markii hore ilaahay baa mahadle, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. ilaahay baa mahadnaqaynaa. marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Yusuf Mire Maxamed Boss. waxaa kaloo u mahadnaqaynaa agaasimaha waaxda ciyaaraha Cabdirashiid Cadiid Yaasiin, guud ahaan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Somaliland iyagana aad baa ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaloo u mahadnaqaynaa madaxda dowlad deegaanka ayaan iyaguna u mahadnaqayaa oo waxay qayb u heleen wax naga siiyey. iyagana aad baa ugu mahadnaqaynaa. waxaa kaloo u mahadnaqayaa dhammaan cid kastoo qayb ka ahayd inaan garsoorka u baxno. shahaadadana waa levelka 2 ee CAF. gabagabadiina waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Boss Mire Maxamed oo ku amaanay garsoorka tababarku u soo dhamaaday dadaalka ay muujiyeen intuu tababarku u socday. maanta halkan wanaga idinka diray
muddo hore oo idinka naga amba baxay si wanaagsanna waa usoo dhamaysateen shahaadihiinii warbixinihii laydinka keenay dadkii aa u tagteen inta markaydi siinaya warbixino qaaliya bay ahaayeen inaa example wanaagsan u noqoteen waddanka oo si wanaagsan usoo gudateen aad baa noolagu soo tabiyey aad baan idinku ammaanayaa inaad si ay yeeshaan waad ogtihiinoo siyaasadda madaxweynaha iminka joogay jamhuuriyadda somaliland muse bixi cabdi iyo xusbiga kulmiye dhammaan waxa weeyaan ciyaaraha iyo dhalinyarada kor loo qaado howlo badan halkan kuma koobi karayno waxa loo qabtay ciyaaraha jawaabay la socotaan oo idinka ciyaartooya ilaa halkaa ka soo kacdeen baa garanaysaan marka mustaqbal wanaagsanna waa leedihiin hore usii kacdaan waxaan halkan idinku bushaareynayaa inaanu idin hayno fursado badan oo aa kusoo wadataan garsoorkiina idinka keliya maahe mid badan oo dhalinyarada somaliland oo dhana oo ilaa gobolladu ay helayaan jaariskooda dhammaan waxaan halka uga mahadnaqayaa cid alla ciddii naga taakulaysay inay haysaan garsoorka iyo shahaadadaha xidhiidhadeenu aada bay u wanaagsan yihiin wadamada kale waynu ka haynaa aada halkan waxaan ugu mahadnaqayaa madaxda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha wasiirku kow ka yahay iyo xidhiirkiisa iyo xidhiirka federaalka ee kelinka soomaalida waxaan kaloo aada ugu mahadnaqayaa xidhiirka guud ee ciyaaraha dowladda federaalka ah ee heer federaal dowladdanu saaxiibka nahay mujaarkana nahay etoobiya dhammaan aada baan ugu wada mahadnaqaya sida wanaagsanada idiga cabteen muddada aad la joogteen iyo sidii tababarku u soo baxay mar labaad waxaan idinku celinayaa waxaan doonayaa in halka akhlaaqdiina iyo kasii haystaan mas-uuliyadda qofka la diraa ama iskuul ha loo diro ama jaamacad ha loo diro ama meel ha loo diro jaaniska helaa qaranku mateliyaa markuu dhulka joogo marka dabeecadiinu sidaa imika ahayd iyo si kasii wanaagsan waa inay noqotaa mar walba saasoo opportunity-ga dadka kale bay iyana ka qayb qaadanaysaa meelo badanna xidhiidho badan baanu ka haynaa waxaan umaleeyaa inaynu soconayno un garsoorkana dhiigga cusub baanu ku shubno dhalinyarada ah aada iyo aada iyo aada iyo aad wax loogu baahnaana wuu ahaa in garsoorayaasha kuwa inoogu horeeyo baa weli jooga in cilmiga iyo capacity buildinga qaybta technicalka oo dhan kor baynu u qaadayna haddii alla yidhaaho hadday maamulkeeda tahay iyo hadday shuruucdeeda tahay iyo hadday garsoorkeeda tahay dhammaan kor baynu u qaadaynaa iminkana waynu haysanaa fursado badan oo korna idinku sii qaado waxaan idin rajeynaya inaad ka faaidaysataan waxaan kaloo idin rajeynayaa intii aad soo barateen dhalinyara kale aan fursadda u helin aad garanaysaa oo nin walba garsoorayaashiina ka mid yihi markuu ka maqan yahay meesha mid kaloo kaaliya buu ahaa ina halkaa laysa sii tababaro oo aa gudbisaan wixii aad soo barateen halkan maanta farxad bay noo tahay inaynu dhammaanteen isku wada nimaadno waxaan halkan mardaynu isku nimi ciidkiina soo dhaweeya xaqriidka yaraada waa lidin hayaa haddii alla yidhaahdo de waynu isku faataxayna waynu isku soo ducaynaynaa waxaa laydinka doonayaa inaad noqotaan mas-uuliyiin qarankan mateli kara halkaasina wuxuu wasiirku xaqal ciidi ku guddoonsiiyey garsoorkii tababarku u soo dhammaaday